السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشركن maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa document-kan halkan iga furan. Document halkan iga furan waad u jeedaa halkaas waa document attendance sheet camal oo lagu qaadayo calaashaan lagu xaadirinayo arday. Marka wali cashirka wuxuu ku saabsan yahay table-ka ama shaxda MS Word 2016 ama MS Word-ka oo idil ee office-ka ayuu ku saabsan yahay. Marka documentigan haddii la daawaco tusaale ahaan haddii la daawaco laba bog uu noqonayaa, laba bog uu ka kooban yahay, bogga koobaad iyo bogga hoose. Laakiin bogga koobaad cidda hesha way fahmi karaan liisaska ama magacyada ku qoran in ay mid walba uu yahay magaca koobaad, magaca labaad, magaca saddexaad, emailkii iyo qofka saxiixiisi. laakiin bogga xiga keligii oo qaawana noocaas cidda hesha ma dareemi karto haddii ay magacyo halkan ka buuxaan, ma dareemi karto muxuu ahaa magaca koow, magaca labaad, magaca saddexaad kii uu yahay ma dareemi karaan. halkan magaca ku qoran tusaale haddaan halkaa Cabdullaahi ku qoro halkana Cali ay ku qoran tahay, halkana ay Maxamed ku qoran tahay, ma dareemayo qofka in Maxamed uu yahay magaca koobaad ama Cali ama Cabdullaahi uu yahay ama magaca saddexaad ma dareemi karaan. qofka magaciisa koobaad magaca awowgiisa inuu Cabdullaahi yahay ma dareemi karaan. ilan qaabab kala duwan loo qoraa muxuu ahaa magacyada. dad qaar ba waxay ku bilaabaan magaca awowga institutionada qaarkooda ama dawladaha qaarkooda. marka waxaa la rabaa marka table noocan oo kale aad isticmaalayso waxaa loo baahan yahay magacyadana la dhaho row heading-ka la dhaho halka ku qoran ciwaanadaas inay ku soo noqdaan mar labaad ay ku soo noqdaan bog kasta oo uu ku daawacan yahay muxuu ahaa uu ku daawacan yahay table-kan uu ku daawacan yahay inuu ku soo noqdo ayaa la rabaa. marka waana wax fudud, wax saa u sii dhib badan ma aha. waxaa la rabaa qoraalkan inuu ku soo noqdo boggan labaad halkan uu soo galo. bog kasta uu u gudbana qoraalka haddii aad sii badiso liiskan uu sii weynaado sii bato waxaa la rabaa inuu mataqaanaa uu meesha ka muuqdo magacyadaas inay meesha ka muuqdaan, magacyadan inay meesha ka muuqdaana la rabaa, magacyadan inay halkaa ka muuqdaan. okay haddaba marka tilaabo yaran qaadayna inta oo muxuu ahaa aad iyo aad u fudud oo lagu sameeyo. kow document muxuu ahaa aan u sameeyo wayaan. marka waxaan rabaa in magacyadan serial numberkii iyo first name, middle name, last name, email, signature dhammaantooda inay boggan labaad soo galaan. oo hadduu liiskan koro uu magacan sii weynaado uu 3, 4 bog 5 bog uu noqdo kale bog kasta uu muxuu ahaa ay soo koraan magacyadan ciwaanadan halka soo koraan rabaa. waxaan sameynayaa marka qalinkeygan qaadanaya waxaan dhigayaa halka qaybta hore waxa waaye boxka u horeeya halkan uu ka bilaabanaya serial name-ku ka bilaabanaya. serial name-ku hortiisa sidaa u dhigayaa, sidaasaan u dhigayaa. laba meel baan ka aadi karaa. marka kow inaan muxuu ahaa waxaan sameynaa halkan aan ka aado, waxaan tegayaa ilaan qalinkii table-ka gudihiisu uu yaalaa. waxaan tuujinayaa layout markaan tuujiyo waxaan tegayaa halkaa waxaa ku qoran repeat header rows, kaasaan tuujinayaa. hal mar markaan tuujiyo hoosaan u baxayaa, bal eeg waxaa dhacayo wakaa way soo galeen, halkaasay soo galeen. waa sida aan doonayay, waa sida marka inaad sameyso loo baahan yahay. so haddii aad dhahdo waan edit garayna halkan asugoo yaal ma edit garayn kartid magacan, xataa ma tuujini kartid waayo copy ma aha, nidaam loogu talagalo ku soo galay. haddana undo baan dhahayaa, qaab kaleetan ku samayn karnaan aadayaa. waxaad aadaysaa layout adoo joogo baa halkan tegaysaa properties markaad tagto qaabkan inuu kugu furmaa laga yaabaa. rowga tegaysaa, halkan waa ku qoran repeat as header row at the top of each page, halkaasaad taabanaysaa. kadibna waxaad leedahay okay aan eegno inay isbedeshay, wakaa way soo gashay idina sidoo kale. marka labadaa dhinac ayaa laga aadi karaa. qaabkaasana qaabka rasmiga ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaasaan kusoo gabagabeynaa cashirka. haddii aad ka hesheen like saar isna diiwaangeli si aad u hesho cashirada xiga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.